بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. مركور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan salaam qeyn badan oo soo gudbinayaa cid kasto maqaamka ay ku fadhido ayaan ku salaamayaa haddii aalayn xulmowdiinka nabadoonnada gabdhaha Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir ururada bulshada rayidka ah oo hogaankooda hor socdo iyo bahda saxaafadaba kulligiinba waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin sida wacan aduga soo qayb gasheen kulankan maanta oo wada tashiga ah. Soomaalidu waxay tiraahdaa waqti gaaban warkiisa gaaban, waqtigii dooda la geli lahaa ayaa la joogaa, duhurkii waa la joogaa. Marka ujeedada halkan aan u nimid waxay ahayd maanta bal inaan iswarsanno hawsha socoto ee aad muddo waqtigeedii in la joogo inaan bal ka wada hadalno oon aragtidiina aan dhegeysanno maqaamka caasimadda sida uu ekaanayo. waa tiyada uu noogu jeedinayo balstationka Cabdi Maxamed horena guddiyadii dastuurka ee madaxa bannaan iyo guddigii dastuurka heer baarlamaanba oo hawshaasi wasaaradii cadaaladda iyo dastuurka iyo gobolka Banaadir ba muddo badan ayay isweydiinayeen. لكن إلهي واتولي وأمرهم شورى بينهم marka bal in la isweydiiyo oo la tashado oo dadka waxgaradka ah aqoonyahanka dhaqanka siyaasiyiinta culimada gabdhaha in bal la isweydiiyo waa laga maarmaan. sidaa darteed doodii sidaas ayaan maanta aan isugu nimid inaan halkan ka daafurno kadibna aragtidiina aan wax ku biirino oo aan ku darsanno qorshaha aan ku duulaan tagayno. haddii aad duulaan tagayso waxa waaye duubka la dhuuqsadaa, marka bal inaan duubka dhuuqsanno oo annagoo haysanno xigmaddii oo akhyaartaan halkaan fadhido. Soomaalidu waxay tiraa gunigeedku ma soo wada aruurto, laakiin annagoo xigmaddiinii iyo kaashanayno ayaan rabnaa haddii ilaahay idhaahdo inaan la goob tagno sida uu ka dhawaajinayo walaalkay shaatax ama cid kastaba ay ka dhawaajinaysay. caasimaddaani waa hadda saddex noola soo bandhigay: caasimad federaal ah oo sida Washington iyo kale iska ah oo waxba yaraatay matalaad ah iyo wax weyn aysan lahayn, iyo caasimad dowlad goboleed ku dhex taalo iyo dowlad goboleed iduba caasimad ah. saddexdaas option ayaa hor taalo. mid asugu waa midkaan ka dagaalamayno diidannahay. waxaan u soconnaa tii xuquuqda ay ku kasba laheeday Banaadir oo Banaadir doorkeedii Banaadirtii la duugay in godka laga soo baxshaa la rabaa. Banaadirtii lagu tiiqtiiqsaday in maxaa la rabaa boorka laga jafo. Banaadir oo bannaanka taallo oo matalaadeedii leh oo doorashadeedii wadato oo maamulkeeda iyo dooranayso oo xuquuq leh state ah. anagu dalka federaal uma doorin, federaal dadku ayagaa qaateen, laakiin haddii taladeyn ay tahay federaalba waa la iska dhaafi lahaa. laakiin maslaxadaas loo arkay marka in inta kalena ay ku dhismaan ay nolol ku helaan. Banaadirta caasimadda eedoo Soomaaliya oo idil isha ay ku haysana ay ku weyso waxa waaye waa culays intaas. garaadku waa shir oo tuuri lahay moota Banaadir la baabashaan biyaha ka soo waa maasantiin. waxaan rabnaa marka haddii ilaahay yidhaahdo haddii culimmadii ay joogto oo nabadoonnadii dhaqanka ee beledkan ay joogaan oo gabdhihii Soomaaliyeed ee beledka ay joogaan oo dhallinyaradii ay joogto oo aqoonyahankii uu joogo haddii ilaahay yidhaahdo waxaan aad u rajaynaynaa u qudalanaynaa
maanta muuqaalkiinu inuu qaybooyin ka qaadanayo waxay banaadir ay heli doonto muuqaalkiinu gogashuna sida uu ka dhawaajinaya haddaayay ninka odaga ahay oo maaragtay hilowle nabadoonka uu meeshaani waa ugu yar tahay markaa rabto haddii aad maaragtay talo aad rabto inaad bilowdo meel koobanaa laga bilaabaa kadib aa la cayiliyaa marka tan waa koobnaantii howlkuna haddii la yidhahdo inta waa kasii weynaa doonaa dadkuna intaan waa ka badan doonaan laakiin bal intaani waxay isu soo dhadhaweysaan rabnaa inaan dadka kale aan dhex geyno haddii ilaah yidhaahdo intaas kadib waxaan rabaa anoo fursaddan uga faa'iidaysanayo gobolka banaadir saad la wada socotiinba waxbarashadii gobolka banaadir qaybta uga aadaneeday shalay meeshuu joogay maanta ma joogto iskoolaadka waa badinay dayactiraan hadda ku bilownay waxaan rabnaa gabdhaha soomaaliyeed hooyo maxay aad berigi maxaa lala jiray gootu iskuulla ma dhihi jirino xilliga marin qaasin maanta waxaan rabnaa gootu iskuulaan rabnaa hooyo cunugaaga u dir waxbarashada ka faa'iidaysta marka waxaan rabnaa hooyooyinka inay cabubadkooda ay u diraan waxbarashada iskuullada inta badan lacag la-aanaa laga dhigay dugsiga hoose dhexe inta badan hadduu shalay soddon iyo intaas ay ahayn maanta 60 iskuulay dhaafayaan ardadu 30 kun iyo 25 kun iyo shalay jirta maanta waa 40 intaas oo kun waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano ubadkayna aan dhulka ka qaadno madaxweynuhu maalintooda midow wuxuu ku dhawaaqay in macallimiinta xoogga la saari doono waxbarashada xoogga la saari doono marka annagoo taas ka duulayna waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano oo waxbarashada ubadka jidadka isaga ciyaarayo ama gidaarada fadhiyo inaan intaan u tagno aan ka soo kicino gacanta ka qabano dhahno kaalay wiilkaygiyo gabadhaydii kaalay iskuulka aada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maalin dhawood markii aan qiimeynaynay imtixaanaadkii inta gashay boqolkiiba wiilash waxaan u malaynayaa boqolkiiba xataa 10 ma dhammayn intay ka badnaayeen gabdhaha marka gabdhihii hadda waxbarashadana dadka waa uga horeeyaan muuqaalkooda iyo maqaalkooda dadka waa ka horeeyaan gabdhuhu marka ha guulaystaan aan leenahay kuwa dhimana nagala daba keeno waa mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad kulankaana kulan baraka qaba allah nooga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirku waa loo furan yahay marka insha allah inta duurka la dukadoo la qadeeyo dood waa noo bilaabato waana mahadsantihiin insha allah kasoo qaybgalkiina sharaf oo nooya